gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa laga ciyaaraa ciyaaro fara badan oo dadku u leeyihiin hidde iyo dhaqan soo jireen ah. TV-gan caalamiga Universal xafiis goboleedkiisa Shabeellaha Dhexe gaar ahaan barnaamijka bandhiga Universal ayaa xilli casir liiq ah gaaray qaar ka mid ah tuulooyin ku yaala duleedka degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay ciyaaro kala duwan ku ciyaarayeen bulshada xoolo dhaqato beeraleyda ah oo deegaanadaasi ku nool. ciyaarta ugu horeysa ee xilliga aan gaarnay halkaasi lagu ciyaarayay ayaa waxay ahayd sirow, taa oo ay ciyaarayeen haweenka deegaanka. waxaa laga ciyaaraa deegaano badan oo ka tirsan gobolkani Shabeellaha Dhexe. halkani galabta ciyaartani lagu ciyaarayo ayaa waxa ay ka mid tahay deegaanada hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana dadka ciyaarahani ciyaaraya ay ii sheegeen in ciyaartani la ciyaaro xilliyada barwaaqada ah ama xilliyada ay roobka da'aan. waxaa la ciyaartan sirow galabtii iyo habeenkii xilliyada barwaaqada. waxaa loo ciyaaraa surow iyo caweys, haweenka iyo ragga dhalinta yar. waa surow waxayna wax la kala saari kara mar waa dhidigow loo badanahay. sidoo kale intii aan ku sugnayn deegaanadaasi ayaa iyana goobta waxaa lagu soo bandhigay ciyaarta loo yaqaano waalada, taa oo ay ciyaarayeen ragga deegaanadaasi. sida aad la socotaan halkani waxaa maanta lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan, waxaana ciyaartan ugu dambeysay lagu magacaabaa waalo, waxaana ka wareysanaynaa qaar ka mid ah dadkii ciyaaraya.
adeer adigoo magacaaga ku bilaabaya ciyaarta magaceeda iyo qaabka loo ciyaariyo sharaxaad naga sii magacayga waxaa la yidhaha maxamed cumar jimcaal nuur guudayn ku magac dheer waxa waaye ciyaartaan aad u jeediin waxaa la bilaaba la ciyaaraa wakhtiga xoolaha iyo dadkaba ay dhargaantiga ay joogaan oo aaranka la heesto hadda maadaama nala yidhi macnaha dadweynaha sidaas aawadeed ayaan idiin tusnay farxaddayna iyo wixii aan qabnay oo dadaalayo nagu jiraan idiin muujinay waa garta marka ciyaarta markii la ciyaarayo sida muuqata laba qof ayaa ciyaaraysa haa dee waa sida marka faahfaahin naga sii qaabka ciyaarteeda ciyaartan waxaa la yidhaha waalo mid waa waalo mid waa shir mid waa muxuu ahay beereya la yidhaha waa dhowr luqadood ay kala yihiin luqadood marka waa hadba sidii aad u jeceshahay tii aad lagu qabto ayaad macnaha u midgeliyeysaa sidaan arkayo waa laba qof ayaa ku ciyaarteen tan kale adi naftirkaaga waa xaraaradda ayaa ku qaad waa boodbood maxaa gooniya ay leedahay waxaa waaye sidaydaba wakhtigii aan yaray baasha ciyaari jiray hadda beryahan dambeeyey farxada uu iga keento wakhtigaan yaray waxaan samayn jiray inaan sameeyo farxadaas iga keentaan u ciyaaray biyuhu ay balliga ku jiraan iyo tubaha dhinacyahooda amba eegta meelba sidii carradeedu tahay ayaa waalada sidaan iyo beereyda iyo waxaasoo dhan bashirta iyo wax kastaba loo ciyaaraa marka hadda ma joogno laakiin niyadda ayaan qaariyaynaa ilaah baan u sheegayn waa hagaag daawadayaal waxaa intaasi ku soo gebagabaynayaa barnaamijkeennii gaarka ahaa oo maanta aan uga hadlaynay hiddaha iyo dhaqanka iyo gaar ahaan ciyaaraha laga ciyaaro gobolkan iyo shabeellaha dhexe barnaamijkana waxaan ku tagnay tuulada Lebiga oo ka tirsan tuulooyinka hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe